مولاي صل وسلم دائما 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. sheekh shabiille aad iyo aad u mahadsan yahay runtii darxigaas qaaliga oo qiimaha badan waxaan rajeeyahay inaan ka wada faa'iidaysanay. waxaan usii gudbaynaa nadwada qeybteedii kale sheekh umal uu noo soo jeedi doono oo ahayd dowr lmuthaqaf fi inqaadi alwadan wa wujuubi alcawdati ilayh, kaalinta aqoonyahanka ka saara wadanka inay badbaadiyaan iyo sida ay waajibka u tahay inay wadanka u laabtaan ilaa lama badbaadi kara haddii banaanka la joogay. marka sheekh umal ayaan kusoo dhaweynaa, falyatafadal fadiilatu sheekh umal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، جزاكم الله خيرا. بعد حمد الله تبارك وتعالى وإذن ما هذا علينا كلن كان أتصو القالسين kasoo shaqayseen. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala wakhtiga yareen wada joogno inaan kala faa'iidaysano. ma aha keliya inaan annaga wax akhrino, laakiin maadaama aad muthaqafiintii iyo aqoon-yahankii dadkan sidoo kale tarbiya xumo oo sida qur-aanka kariimkii in badan isdaba dhigay, tacliinta iyo tarbiyadu ma kala maarmaan. yucallimuhum alkitaaba walxikmata wa yusakiihim. nabiga sal alla alay wasalam muhiimadiisa markii marar badan laga hadlayo waxaa la isdaba dhigaa tacliinta iyo taskiyada. taskiyadu bimacna tarbiya waaye, oo ummaddu inay wixii ay baratay ay dhaqan geliso, ku camal fasho, qaadato waaye. tarbiyadiina dee way iska caddahay, iyadana ninkii samayn lahaa waa muthaqafka. ilan jaahil iyo ruux isagaba lafihiisa qaawan, laba qaawan isma qaataa la yidhaahda. nin qaawani iyo nin jaahila dowr kuma yeelan karo ummadda inuu tarbiyeeyo, maxaa yeele isagii baa tarbiya u baahan. marka dowrkiinii waaye muthaqafiinta iyo aqoon-yahanka ummadda yaa la rabaa ummaddan inay tarbiyeeyaan, oy ku tarbiyeeyaan muxuu ahaaye waxyaalo fara badan. ay ku tarbiyeeyaan ilaahay tabaaraka watacaala allihii abuurtay ummaddana say ugu xidhmi lahayd, masaalixdeeda adduunya say ku garan lahayd, danaheeda say u qabsan lahayd, waxyaalo fara badan. mashaakiisha haysta ummadeenna waxaa ka mid ah oo cudurrada waaweyn la dhihi karaa tafaruqa iyo qeybsanaanta iyo iskhilaafka, mar ku salaysan qabyaalad, mar ku salaysan deegaan, mar ku salaysan muxuu ahaayey yacni ururo, mar ku salaysan mabaadi. kullu daalika khilaafkaas wuxuu u baahan yahay in la cilaajiyo, oo dowrka ummadda badbaadadeeda iyo dalka badbaadadiisu waa in khilaafkan la cilaajiyo oo la daaweeyo wey. see loo daaweynayaa? wax ka mid ah siduu sheekhu tilmaamay, daawadiisu waxay noqon kartaa, khilaafku waa iska jira, waa tabiici sidiisaba. ummaddu inay kala gedisnaato. ilaahay baa midabkeeda kala duway, oo garashadeeda kala duway, oo mustawaha aqoonteeda kala duway, oo deegaan ahaan kala duway. kala gedisnaantaasi waxay keenaysaa in sidoo kale ijtihaadaadka iyo ru'aaga iyo lagu kala gedisnaado. kala gedisnaantaasi marka waa shay iska tabiici ah. asxaabu rasuulillahi sal alla alay wasalam oo nabigu wada tarbiyeeyey, ood garanaysaan hal macallin lahaa, ayaa haddana muxuu ahaa ijtihaadaadkoodu iskhilaafayeen oo ku kala gedisnaayeen. laakiin waxaa laga maarmaan ah siduu sheekhu u tilmaamay inuu jiro waxa la yidhaahdo saqfi muqadas ah
oo khilaafka iyo kala gedisnaantaasi ayna saameynaynin. yaa garan kara yaa ilaalin kara waa muthaqafka. sidoo kale waa in ummadan laga dhaadhiciyo waxa loo yaqaano fiqhul ikhtilaafka. fiqhul ikhtilaaf oo macnaheedu yahay inagoo iskhilaafsan haddana khilaafku saameyntiisa nolosheenna sidee baan u xakamaynaa, seen u xadidnaa. ama khilaafku mid diini ha noqdo ama mid dunyawi ha noqdo. marka fiqhul ikhtilaafkaas iyo ka dhaadhicintiisa iyo abuuristiisu waxay ka qayb qaadanaysaa inay ummadii isku soo dhawaato oo masaalixdeeda caamka wada ilaashato oo danaheeda wada ilaashato ayaa ka dhalanaysa. waxaa ka mid ah mesela nuduuj iyo bisayl uu ruuxu muthaqafka asal ahaanba la doonayo inuu ka bisil yahay amraadda iyo cudurrada mujtamaca haya ee keenay inuu wadanku dumo, dadkuna kala tagaan oo iskhilaafaan. dhibaatada kale ina haysato waxaa ka mid a runtii dowr iyo kaalin muhiima aynu ka qaadan karno, loona baahanya cid kaloo ciyaari karta dowrkana ayna jirin. ummadda in la baro cadowgeeda, in la kala baro saaxiibkeeda iyo cadowgeeda. saad ogsoon tihiin dadka kuwii inoogu fogaa ee inoogu cadowsanaa baan maanta hoos joognaa oon danaheennii u dhiibannay, danaheennii aan u dhiibannay oon dalkeennii u dhiibannay. sababta waxaa baaba'ay markii aad u haysato ninkan walaalkaa ee isku dalka tihiin, ee isku dhalashada tihiin, eed isku midabka tihiin, ee isku diinta tihiin, ee isku aqoonta tihiin, markaad collaysato mid aan kulana diin ahayn, kulana dhalasho ahayn, kulana midib ahayn, kulana diin ahayn, aada hoos gashood ku cararto, macnaheedu waxa weeye ummaddaasi qatcan waa ummad ay u dhammaatay waa. marka cadowgii baa baaba'ay. ummaddan cadow taariikhiyay lahayd. cadowgii marxalo adag ayadoo maraysa bay cadowgeedii u gacan gashay. ilaa heer maanta waxay taagan tahay qabaa'ishu qaarna ay kenyaanka isxijiyaan, qaarna ay etoobiyaanka isxijiyaan, qaarna ay ugandhiyaanka isxijiyaan. halkaasay maanta maraysa oo ay kala difaacdaan. yaa lagu socdaa, masaalixdoodii baa la burburinayaa, iyagiina annaga kuwaasaanu la dhalannay bay taagantahay oo abtir in hadda loo sameeyaaba lagu dhow yahayba taqriiban. marka ummadda in cadowgeeda la fahansiiyo waa dowrkii iyo kaalintii muthaqafka, waa kaalintii aqoon-yahanka waa. waxaa ka mid a maalan tajaaribtan aad caalamka ku aragteen in loo naqliyo ummaddii loo gudbiyo, innaga dhexdeennana ay noqoto shayga saa'idka ah. oo maxaan tajaaribta adduunka waxaan haynaa inta aan kala fognahay 100 goor ka badan ayagoo kala fog bay wada nool yihiin. waddanka la yidhaahdo Tanzania waxaa lagaga hadlaa wax ku dhow 130 luuqadood baa lagaga hadlaa. u fiirsada, 100 waa hal waddan keliya waa 127 ka badan oo luuqadood oo lahjadood baa laga hadlaa. waa qowmiyad. haddana maca daalika waa dadkaas wada nool oo wada socdo oo masaalixdu ka dhaxayso, danaha ka dhaxayso. annaga waxa weeyaan يعني koonfur waqooyi bari galbeed kulli hal luqad baan ku hadalnaa sooma. يعني waxa weeye hal jinsi baan ninka koonfur ka yimid, ka bari ka yimid, ka galbeed ka yimid, ka waqooyi ka yimid, maanta haday ku soo hor istaagaan ma kala garan kartid. midab gooniya ma jiro oo suuro gooniya ma jirto, ma kala garan kartid. ummad haddaad u fiirsato kulli isa soo wada gasho waay. intayna hadda meesha fadhina haddaan isu abtirsanno ama hooyaan iska soo galaynaa ama aabbaan iska soo galaynaa ama gabdho la iska qabaa la iska soo geliya. waa ummad iyadoo dhan ballaangaababa, innaga dhan ballaangaab baan iskana. marka laynoo fiiriyo mujtamacaadka deriska inala ah iyo tiradoodu meeshay marayso, waxaan aad ugu farxay runtii 20 sane hadda u dambeysay Soomaalidu aad bay u tarantay. masalada inaad gabdhihii rag iyo dumar fahantaanna waa laga maarmaan. masalada taranku waa tartan qowmiyaadka aan inugu xeersan aan kula jirno waa. laakiin waxaa runtii wax weyn ah xalimiyeed mise habeen hore wada fadhinay culimada baan masaladaas soo qaadnay. markaasaa waxaan idhi 7deenan hadda meesha fadhina imise ilmood baan leenahay, caruurtaadii iyo intay dhaleen bas nin walba waxaa ku soo hagaagtay 10 ilmood. 11 ilmood
toddobaatan iyo dhowr shan baa noqoy ilmood oo intooda badan aan dhalay bay noqotay. meesha waxaan kala soo baxnay taranka Soomaalidu wax weeyaan taqriiban boqolkiiba 10 ka badan bay tarmayaan Sooma taqriiban macnaheedu boqolkiiba aan dhihin yani wax weeyaan halkiiba waxa la dhihi karaa 10 dhowr iyo 10 buu tarmay Sooma waxaan ku rajaynaynaa hadii taranku saa u sii socdo gabdhuhuna raalli iga ahaadeen waxa inta badan arinta keenayna waa guurka badan way ficlan Sooma iyo caruurta badan marka laangaabahoo tartan ku jirtay waa inay dagaalkaasi waa dagaal sahlan ma waad ogtihiin marka in yani waxa weeyaan runtii istiraatiijiyad fara badan bay u baahan tahay ummadani wacyi badan bay u baahan tahay tajaaribta marka ummadahan aan la noolahay ee soo marteen ee la soo maray in la gudbiyo waa laga maarmaan waana dowrkii mutacallimiinta waxa dowrkii mutacallimiinta ummadani u baahan tahay waxay maraysaa runtii muncatif aad khatiir ah taariikhdeeda muncatif khatiir abay maraysaa muncatifka ay maanta marayso waa taariikh qoraal u baahan taariikh u baahan qoritaan u baahan waay لأن taariikhda waxa loo qoraa lima bacdaha ajyaal baa soo socota 20 sano dhowr iyo 20 sano hadda taariikhdeena ka maqan Ethiopia waxa la yiraahdaa dhowr meeqa sano 6 sano mise 7 sano oo la gumeysanahay bay taariikhdeeda ka saartay caalamka hadda 7 sano ka dambaysa taariikhan anaga hadda 20 ka sano nooma xisaabsana waxaan u maleeyaa taariikhdeeda in laga saari doono hadii dib laga fikiro marka yani muddada iyada ah waxay u baahan tahay marxalad kastay umadu marayso taariikhdeeda in la qoro oo loo qoro waliba si xiyaadi ah ma aha muxuu ahaay caatifa iyo ma aha laakiin waxaan dhacayo in la tawthiiqiyo la qoro wixii waxyaalo uu noqdo umadu ka faa'iideysato waa dowrkii runtii waxa weeyaan yani aqoon-yahanka ilaa iyo haddana kitaabaad iska basiida mooyaane laakiin mushkiladan cumqigeeda wax daraasaad ka diyaari inta ama aad qoraysaan yani rasaa'il fi magisteera ama rasaa'il fi doctora taqriiban waxa weeyaan ma arkin xogaa uun yaryar mooyaane laakiin wax weyn ma jiro waxaa laga yaabaa in laga baqayo oo la isleeyahay dee waxani weli waxaa nool dhacdooyinkan dadkii galay iyo qabaa'ishii iyo wixii baa nool marka xasaasiyaadkeeda badan ficlan oo jawaanib fara badan waxay ka leedahay mashaakil bay ka leedahay way dhici kartaa in sida looga tajanubayo laakiin runtii waa mas'alo daruuri ah ahdaastan intii wali ilaan wax qoran oo qumani ma jiro maraajix xataa loo noqdo ma jirto laakiin waxa nool dadkeedii baa nool shaahid baa nool marka in wax la ururiyo oo buxuuth laga diyaariyo waa dowrkii waxaan isleeyahay aqoon-yahanka runtii intaasi dowrka aan kaga baxo masalada ku noqoshada wadankii runtii waa mas'alo asaasi ah markaan diinteena dib u fiirino quraanka kariimka Allah tabaaraka wa ta'ala quraanka wuxuu ku sheegay barashada cilmigu muhiimadeedu inay tahay inaad reerkaaga ula noqoto sooma falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din waliyundiru qawmahum idha raja'u ilayhim maxaad wuxuu soo baratay inaad reerkiini markaad ku noqoto aad u digtood wax barto laakiin nin meeshu wax ku bartay iyo ka sii aaday war dadkaad ka timid baa baahan jinka markay nabiga u yimaadeen sallallahu alayhi wasallam quraanka kariimka wuxuu sheegay markay halkii habeen ay la kulmeen oo quraanka dhageysteen koox jinka kamid oo wafdi ahaayo nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam oo jinkii nasiibiin ka yimid xadiisku ku timid markay quraanka dhageysteen waa kuwii markiiba laabtay sooma falamma قضى صومهن فلما ولوا إلى قومهم فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين صومه مركي قراءتي ونبي قدميي أو يفهمين با مركي بوي لابتين أو حيكون نقدين قوم كودي يجوا أودجه يا قومنا إننا سمعنا قرآنا أنزل هل كاسيك بالله مركا روح وحصوب برتي ومدي سوح برتي نبي صلى الله عليه وسلم صحابته انتي مادان وصو إسلامان oo ay la joogan wax yar buu markaa ka dhigi jiray tagac ku noqdo meelaad ka timaadeen Malik ibn Huwayrit miyo xadiiskiisii oo 20 bari nabiga la joogay sallallahu alayhi wasallam
iyagoo weliba dhalinyaro ah kadibna wuxuu yidhi kaca taga way tageenoo xogaagoodii bay gaadhsiiyeen reerkoodii masaladani marka waa masale asal ah runtii ummadaha kale inaga thaqaafo badan inaga aqoon badan ummadeenni baa inoo baahan mashaakisha ugu fara badan ee ummadaha burbura ku dhacana ama amnigu baaba'o ama mashaakishu ku dhacdo inta badan waxaa ku dhaca waxa la yidhahdo hijratul cuquul sooma hijratul cuquul waa akbar mushkila oo mujtamacaadka burbura ku dhacda waa cuquushii baa tegaysa waxgaradkii baa tegaya aqoonyaankii baa tegaya nolol bay raadsanayaan wadamada degan bay aadayaan yaa meesha isugu hadhaya marka waxaa isugu hadhaya waxoogaagii geel jiraha ahaa iyo mooryaantii iyo dhuljiiftii 20 sanaba kacday oon qaran aqoonin oon aqoonin oon dawlad aqoonin oo macaanida ibni aadamkaba xabad ayna ka dhacsanayn sooma kuwii loo baahnaa dhaqan celin in loo sameeyo baa wadanka haysto madax ka ah leesh laana cuquushi baa ka tagtay cuquushu marka waa inay noqoto oo mutacallimiin iyo aqoonyahano waa inaad dalkiini ku noqotaan oo hadaad diin baratay iyo haddii aad culuumta muxuu ahaay kalaba aad baratay dadkaagii baa kuu baahan waxaan aada ugu farxay magaalada Nairobi waxaa noogu yimid rag fara badan oo dhakhaatiir ah oo Soomaali ah oo kusoo Mareykan iyo Yurub wax kusoo bartay oo mushahaar aad u qiimo badan ka qaadan jiray meeshay joogeen oo waxoogaa intay is urursadeen yiri warnimayow sidan si ma ah inaan dad cadcad daaweyno waxoogaa mushahaar raadsano macquul ma damiirkoodii baa siin waay way soo tageen war meesha ugu dhow xagee weyn Kenya yimaadeen deegaamada Soomaalida tageen qaar ka midana Soomaaliya aadeen sidaas daraadeed ummadiina inaad u laabataan wax abuurtaan jaamacada abuurtaan dhakhaatiir u noqotaan aqoonyahan u noqotaan dhaqaale u abuurtaan siyaasiyiin u noqotaan hadaya yaa lagu halaynayaa waay masaladaasi waa mas'alo daruuri ah sharcan wa aqlan wa caadatan intaba runtii wax weey laazim ah aadna runtii wax looga xumaado weeye fududaysiga arinta iyada la fududaysanayo ama meehe in maskaxdeena iyo aqligeenuba uu noqdo markaan wax baranno waana runtii arin aad loola yaabo waay buufis oo Mareykan iyo Yurub in la aada PhD magister baa la qaatay markaas waxa la aadayaa Yurub iyo Mareykan ma waxbarashadaadii meeshan waxba kugu anfici mayso waxaad arkaysaa nin dhan oo doctora ah ama magister ah oo airportka intuu tagay airportka yaani ul dheer wato xaadhay airportyada xaadhay warse wax kaayeen war risqi baan raadinayna meeshii meel lagu noqdo male risq baan raadinayna yaani waxa weeyaan waa arin damiirku uusan qaadan karin waa ninkani dalkiisa iyo ummadiisa haduu ku noqon lahaa sayid buu noqon lahaa sayid hawa iska gaajeysnaado laakiin nin boqoraho sayid oo mutacallim oo dadkiisa magac ku leh uu noqon lahaa markaas wuxuu ka doorbidayaa marmarka qaar kood meelaha muxuu ahay dadka waaweyn habraha iyo duqeytida iyo lagu xanaaneeyo meelahaas wax ka raadina marka nimayahow masaladaasi mas'ala sahlan ma masalada iyada ha lagu baraarug ama meehe wuxuu iska noqonayaa rajul a'maal oo risqiisa un meelaha kaas laftiisa ka roon hata ka kale waa ka roon waxa dhici karaysa oo iyada lafteedu aad u xun mutacallimiintu inay meeshii ay waxalin lahaayeen ayba mushkilada wadanka ka qayb qaataan runtii aathar xun waa ka dhalatay weenka dhaweedoon muxaadaraha dadweynaha u muxaadaraynay su'aal baa timid oo la leeyahay sheekh muxuu ahaay hadiiba dadkii mutacallimiinta aha mushkiladii wadanka ay qayb ka yihiin ama diin ha barteen ama culumta kale ha barteen hadda seeban waxbarasho aanu hadda ku hamino wax sii barta ama maxay faa'iido leedahay yaani wax way waa nashigi loo baahnaa inay fiirsadaan oo yiraahdaan ninkii muxuu ka baxay muxuu ahay halkan hebel ah in la joogay mashruuc hebel buu abuuray jaamacad buu meel hebel ka abuuray inta soo ruux ba shaqaalo ah hebelkii waka wadankii siyaasadiisii barnaamijkiisii wax ka islaaxinaya kan yarkay meeshan jooga waa kugu dayanaya laakiin markuu arko koox wax burburinaysa cilmiyo balaayaha ku barato dhih sooma cilmiyo kii ku bartay ba haduu kaaye balaayaha ku barato warkayana waxba idin ku badinine muxuu ahaayay mawaahibtiina hadilina
oo aqoontiinna ha dilina oo sharaftiinna iyo karaamadiinna ha dilina oo ummaddiinnii baa idiin baahan oo dalkiinnii baa idiin baahan oo isaga inaad ku dhimataan ood ku noolaataan ood u rafaadaan ood wax ka samaysaan. nin baa maalin muxuu ahaa waxaan isku aragnay Nairobi dhalinyaradii jaamacada islaamiga ka soo baxay buu ahaa. marka waxaan ku yidhi wareedhe maxaa kugu dhacay oo aad meelaha la taagtaagan tahay oo maad wax samaysatid? wuxuu igu yidhi muxuu ahaay idinkaana dayacay buu igu yidhi, idinkaana dayacay. warninkaaga mutacalimkaa baan anugu dayacay. wuxuu leeyahay maad wax ii samaysid adugu. qolada kaatiro oo fara badan oo Soomaaliyeed Kenya joogto jaamacada ka soo qalin jabiyay oo ninba meel shaqaale ka yahay baan qaar ka mid intaan shirina waxaan ku nidhi warheedhe shaqaalinimadana waad ka baxaysaan, waadna noolaanaysaan, ummadana waad anfacaysaan, jaamacada aasaas annagana magac annaga aanu idinku garab istaagno aanu dhaqaalihii idinla raadino. ma jirto dhiiranaanta iyo raganimada iyo hal abuurkaas maqan. nin kasta markuu shahaadadiisa qaato wuxuu rabaa inuu shaqaale noqdo ala aqal taqdiir sooma. waxaa fadli weyn ah runtii in hadda wadankii muassasaad ka abuuran yihiin, tacliin ka abuuran tahay, ummaddu ay isku tashatay, wax badan ay jiraan. marka waxaan idinku ta'kiidinayaa masaarkan hadda aynu ku soconno oo meel kasta keligiin ma ardada Suudaan ka baxaysa, ardada Sacuudiga ka baxaysa, yani waxa weeye meel dabayl baa jirta. nimayahu intaynu bedelo aanu ololayno wadankii in lagu noqdo, nin walbana takhasuskiisa iyo wuxuu bartay wadankii kula laabto. dadkan wadankeennii kharibayna inaan ka inqaadino walow limuddati 30 sana 20 sana 50 sano soo socotaa noqoto. haddaanan istiraatiijiyada noocaas ku hawlgelin hadda meeshan u baynu Afrikaan madmadow oo la yeeso waxa doonto baro, Afrikaan madmadow oo hoos loo fiiriyo baynu noqonaynaa. khayr Allah idin siiyo warkayaan waxa idin ku badinina, laakiin waxaad ogtahay ma ku sheegaa buu iska ah barnaamijku. waxaad ogtahay ma ku sheegaa horaan idin ku sheegnay ragii aqoonyahanka waa idinka. annaguna muxuu ahaay siyaarada aan soo siyaaranay baad munaasabad ahaan runtii noogu samaysay inaan is aragno. kalimaadkana kalimaad malagood galay bay iska ahaayeen. marka raalina ahaada jazakumullahu khayran. warkan intaasaan ku gabagabaynaya. barakallahu fiikum. assalaamu calaykum waraxmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خير شيخنا شيخ أمل. علماء وحواي ومدح مال كسر ولا صلاح ماله وفرصة غالية مركا وان درين سنة سؤال بدن هي تعليقات بدن لقبه مركا آدي ما سنتين. جزاكم الله خير. انت اسكدب وحان كلمة يرسينينا إن شاء الله تعالى nin odayo oo noo yimid oo soo gaaro duyuufta qayb kamida oo adiiba oo shaacira oo Sheikh Cabdirashiid Ustaad Cabdirashiid Umar la yiraahdo. marka soo dhawaayo bal adabka iyo maaragta la hilmaamo wax badan oo aan ka oomanahay 20 iyo dhowr sano ka badan inuu qaan nooga siino warjeynina insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ma tagnaan horta waan idin salaamay dhammaantiin. si gaar ahna waxaan u salaamayaa culimada. magacaygu wuxuu yidhi ninkan waxaa la yidhahaa Cabdirashiid Cumar, laakiin magacaan ku kabaa jira oo ina coos gurow. gurowgaas waxaa reewaamaan nahay ree koonfur bar. marka kolley wadaadadii baa hadlay, waxba ay noo hambeeyeen oo hadda laga hadlana ma laha. macnaha mawduuca suu ahaa ayay oga hadleen. marka aniga waxaan jeclaan lahaa marka hore waxaan waday gabay caadi ah oo tacliin waa tariig iyo aftiin lagu tanaadaaye ilaa halkaa u socda gow ah. laakiin hadda waxaan rabaa inaan ka soo laabto oon u yara laabta dhan aan su'aalo madaxa macnaha wixii waa laga hadlay macnaha imtixaankii macnaha waxaan sheegi rabayba waa marka inay wax macnaha su'aalo madaxiina hadhow ilaa hadhow ku hara bal inaan ku abuuran isku dayay maansa kale u laabanaya saar waxaan rabaa maanahay waa abtirsaday mugtahay. marka saaran u laabanaya waxaan rabaa horta hal qiso yaran rabaa inaan ka hormariyo meeshan. annaga markaad carabta soo aadaan wax ka soo barataan aad hanweynin badan baad nooga soo tagtaan macnaha qofka wadaad baan u ar annaga hadduu mar carabi ku hadlo khalas
waa sheekh wadaad ah macnaha marka waxaan rabnaa inuu masaajidka nahor mara shaqo kalena arrimaha kalena naga hogaamiyo marka mar dhaxda waxaa dhacday magaalada Gaaris nin jaamaca islaamiga ka soo baxay jaamaca caalam العربي ka soo baxay ayaa wuxuu bilaabay madrasa yar gabdha yaryar wuxuu bilaabay in maamooyin wuxuu bilaabay inuu baro sirada nabiga محمود oo macnaha shaqo aad u maraagsan ahayd laakiin wuu yara dadegsaday waxaa jiray sheeko socotay oo maalintii dambe markuu sirada nabiga u baray oo ogaadeen magaalada Gaaris reerka dega waa la garanaa soo ma reerahana inaan ka xishoodno maha waxay ogaadeen nabiga inuu ahayn nin ogaadeen horta marka hore way huleenba macnaha reerku ka yeembay garanayeen laakiin markuu u sheegay oo abtirkii uu ka soo bilaabay ragii wax fahmin noqdeen gabdhii wax fahmin noqdeen ayaga waxa la arkay dariiqada mari oo leh huwa rasuulullah ila naasi kaafatan ku heesay macnaha sallallahu alayhi wasallam marka arinta markay dhacday maalmo kadib sheekhi xoogaa uu yiri dadegsaday maxay ardayda ku gaabi moogtahay wuxuu u loo imaaday halqayu najaasa sheeka dheer waxa socotay dood ka socotay sheekh Nasruddin Albani Allah u naxariistay mataga ma nijaasa ama nijaasa maha tii ula tagay asagoo darsigii ka bogay inuu tii ku tuuray maalintii dam wax kala dareeray wax kala yaaceen waxay dhahan sheekha waaba wax kala wataaba marka midda iida ah waxay ka imaadaa hadal yar oo maansa inuu sheegi rabaa meeshan yalaan yal xaleyrta roob mar uu yaacdiray xilligu yaqiin duul sheeganoo aqoonyahan baan yiri haduu wali yuururo yal baan suugi laga maqlaa yaabi ama ka hiray yah lagu haaraama ay kun yahuubaan ka iri macnaha Soomaalida xilligeeda uma taqaanay ahayd laba dabeel kala jirta hadda roob kortiisa mid waxa jira waxa la yiraahdaa yaalan yalxo roobkay ka dambaysaa midna waa yal oo roobkay calaamad u tahay marka nin aqoonyahan ah oo caalam kale wax ka soo bartay oo aan gadaal u noqon markuu xagga ku noqdo xididada ma yeelan dhulkii ma gelin gadaal uma laaban wixiisa ma ogaan marka yalan roob yaltiba timid way mooday roobkii baa macnaha daay waa dhamaaday yalan yalxadii dhamaatay asaga wili uu fadhiya yaltii sugaya marka maxaan yiri hadana yicris caws iyo tigaad yaxniga saaran subax yaqiin duul sheeganoo aqoonyahan baan yiri haduu yoomo yira waa show roob saaka yimid yaabi ama ka hiray yah lagu haaraamay ay kun yahuubaan ka yiri macnaha yalan waan naqaana dhadada day ninkii suuxi saaka roob daay u maleeyay aqoonyahan ku aragnaa ayagana macnaha uu ka hadli karaa wuxuu ka hadli karaa riyaad iyo agagaarkeeda hawada say tahay inta dabeelo marta maxay yeelay muqarrar ku bartay laakiin ka dambaba waxa kala ma fiirin tiisa ma ogaan marka waxa dhici inuu dib keena marka dibku keenay waxay tahay adiga markuu kula qitaabaya ninka waa Soomaali af Soomaali ku kula hadlay laakiin waa nin Arab madow waay marka taa iida ah كل هذا أقون معناها ضد متعلمين أقونيهن أنتي سواتين مركب مدة إذا أسكت دوينا إخواني معناها أسكا تو لقد دو ولا قد بحنا نقطة ما هي لي مركي ومدة أطلعها ليس أي نفط هذا أدوحي تاي أوجين ومدة نفط هذا معناها الضبع هذا إيه وحي تاي أد أوجين وحنقول مركي إنها كنته إن هذا لبا كلا إنه قصي الدرة يحاس وأون قبطه إنتو وبيع كتجي دواق دور يابس تبن يبوه بيولتجي ياضو إورابي يري يابي أما كافري يهلقوا هرامي يكون يهوي وانكيري ياضو واتقا وكشتة يحسن تو وبي كبحي أون هاي أونكي وبي وكلب بحي وكشتة أو دور جوكت الأذي إذا وعرقنا الشيخ هذا عرب كل فتي وحو كذا والله دد وحصوب برتي أو قبيلك وهو جامنية معناها أديك كور شارعك وهو جامنة شارعك وضع أديك ميا شارعه جامن شارعك وهذا محلي الشيخ تنين تركي سكمو وينية قدي أفرصح شكله عسد قلي مركز وإحنا حتى هي حاس ولا متى هي حاس كويتستي مرتي هي يقلل أول لقد دكتور أو دير لقى شيء يل يلر يمرن دجال يليري معناها الدير بعدها جستي وعد ستي وحضور ستين اللر كدك ستة
asagii baa wuxuu ku leeyay war dheer kale ii yar leertii ugu dhacday iidana waa aqoonyahankan marka taa iida haddaan ka baxna oo wax macnaha hataa inay aad u badnaadaan maha cilmiga laakiin wax yar ood haysata aad dadkaadii fahanta ummadaadi haddaad fahanta waa khalaas waxaa waaye waxay noqoni faa'iido yeelan laakiin hadday noqoto adiga cilm caalam alcarabiya haysta laakiin inaad fikirta ma rabtid ama caalam kalaad kala timid macnaha meeshaadiba inaad ku dabaqda ma rabtid cilmiga inaad meesha dhulkaadi geliso ma rabtid xitaa waan haysanaa dhibaato waan ka qabnaa nin wadaad ah oo wax soo bartay markuu meesha noogu imaada wuxuu ka hadlayaa tawxiid raba inuu ka hadlo markaasuu ku leeyahy macaanida laa ilaaha ila allah macaanida marka asaga tan carabiga ka wadaa maamada tan soomaalida maxay u fahmi duqda maamada dhegaysanaysa maxay u fahmi macaani u fahmi macaanida iyo muqtadayaadka iyo maaragtay arrimo carabiga ku hadla lakin ku soomaaliyeyna un ha macnaha marka ninka carabiga af soomaali u macnaha erey carabi ah oo siiqa af soomaali u yeelay ama ku hadlay dadka waxba uma faa'iideyn marka taa iyada inaan ka waantoonno oo maaragtay dad marka xagga ku noqono aan noqono ummadda dadkii la hadli kara wasalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad u mahadsan yahay ustaad cumar abwaankaas ina caws gurow aad iyo aad u mahadsan yahay runtii oo boorka naga jafay wax badan inna dareensiiyey waa muhiim jiddan runtii waddankan ku noosha haddaadna garanay ilaa asagaa beerane asagaa ku socane waa wareer luqadahaas wax badan laisku khalday oo macno kale loo qaatana way jiraan marka waxay ila tahay in abwaanin dib loo abaabulo in la aruuriyo hadday jiraanna la saacido